Soomaalida ku nool waddanka South Africa ayaa caan ku ahaa inay yihiin dad ganacsato ah iyadoo qaar ka tirsan mas'uuliyiinta dawladda South Africa ay marar badan ku amaaneen sida wanaagsan ay Soomaalida ugu shaqeystaan amaba wax uga soo saartaan gudaha waddanka. Bilihii ugu dambeeyay ayaa waxaa sii kordhayay tirada Soomaalida ku cusub waddankan South Africa iyadoo taasi ay sababtay markii ugu horeysay in shaqo la'aan ba'an ay ku habsatay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhawaan soo gaaray dalka Koonfur Afrika iyadoo tirada dadka shaqo la'aanta ah ay ku badan yihiin magaalada Cape Town iyo nawaaxigeeda. mid ka mid ah boqolaalka Soomaalida ah oo bilihii ugu dambeeyay soo gaaray magaalada Cape Town ayaa TV-ga caalamiga Universal u sheegay in South Africa ay ku soo sirmeen taasi oo uu ula jeeday in sidii looga sheekeeyay ay ahayd in shaqooyin diyaar ah ay u tagi doonaan haatana ay shaqo la'aan yihiin isaga iyo intii ay isla socdeen. waa kan isaga oo ka hadli doona wax uu kala kulmay South Africa. anaga waxaan nimiday bisha koobaad 5 tiriyaan soo galay waxaana la igu sheekayay in waddanku aad u shaqo leeyahay ilaa haatan shaqo ma jirto. dad badan oo iga soo horeeyana hoteelada ayay buux dhaafiyeen oo sanad xataa joogeen 5 bilood 8 bilood qof kastaba si ayay u murugaysan tahay. dadkaas ayaan kula kamidna. maxaa sabab shaqo la'aantan inay waddanka haatan ka dhacdo? dadka waxaa loogu soo sheekeeyay in khaasatan Cape Town ay shaqadu taalo meel kastaba in la soo dhaafaa Cape Town la buux dhaafiyay. saas darteed inay tahay ayaan u malaynayaa. waxaa laga sheekay jireen shaqo hore laga helayo si loo malaynayo maan shaqo hore laga helayo waa adag tahay sharciga waa adag yahay wax walibana waa adag yihiin. shaqo la'aanta soo food saartay Soomaalida jooga waddankan South Africa kuma koobna dadka cusub oo kaliya balse waxay saameysay tiro kale oo kamid ah dadkii hore u soo galay waddanka. wadooyinka waaweyn ee xaafadda Bialval oo ay Soomaalida ku badan tahay ayaa waxaad ku arkaysaa dhalinyaro cusub oo si raxan ah u wada socda kuwaasi oo baadi goobaya cid ay asxaab ama ehel yihiin oo ugu yaraan ay ka helaan goob ay ku noolaadaan inta ay shaqada ka helayaan iyadoo hoteelada magaalada ay buux dhaafiyeen dadkii iyaga ka soo horeeyay. shaqo la'aanta soo wajahday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku cusub gudaha waddanka kuma koobna ragga oo kaliya balse waa mid si guud u saameysay rag iyo dumar intaba iyadoo xilliyadii hore aysan jirin dumar ka shaqeeya meelaha tuulooyinka ah balse haatan ay jiraan dumar u raadsaday in ay ka soo helaan quutliyoonkooda. Cabdikariim Mursal Faarax, Universal TV, Cape Town.